wala ku soo dhaw shirkadda Somaliland Live adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo cid aad uga faa'iideysanaysa salato munaasabadda 22 gurida Somaliland runtii aad baad u mahadsan tahay waxa la yiraahdaa jaamacada Xilibi waxaan ka socdaa jaaliyadda Haysan runtii waxa weeye waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda tan ee maanta ka qayb galay iyo sida wanaagsan ee jaamacada ka dhacay waxaan leeyahay guul bay nagu dhamaatay aad baan ugu faraxsanahay وماسداي adigoo wala magacaaga ku bilaabay kuna soo dhaw shirkadda somalilandlive.com magacayga wala waxa la yiraahdaa Abdisalaam Maxamed Faarax waxa weeyaan caawa aad baan u faraxsanahay waxa weeyaan anigoo ka tirsan jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Germany gaar ahaan magaalada München marka waxa weeyaan aad baan u salaamay sidaad u aragtay xafladan caawa 22 gurida Somaliland ugu dabaaldegayno xafladani aad u wanaagsan tahay sidii xafladii horeba أنا أقول حفلة ما كتير قلي حفلة هم موارد تدخوا وذهبي إنه ولا ما عليه تجاه حرمديس أيوه وحفلة دينية مركا وهرسة ما حد أمضى قبل كون ولا سفير كانوا تي مسؤول وركات سنة تيار هو ده مرة سنة بشوفك أنا هو ده مرة كنت عيد وناكسن يو نبتديو إني سنة كانوا كعيدة سنة كدمنا هيك كويسين وأيامك كوضان dadkoodii way dalkoodiina waxay tara karaan intaas oo weyn aad iyo aad u naasadiisay xamsi ku soo dhaw shirkadda caalamiga Somaliland Live media.com adigoo ka hadlaya habka abaabulka iyo dhamaadka xafladuba idin ku dhamaaday bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore ummadda reer Somaliland meel kasta joogto waxaan leeyahay hambaliyo sanad fiican oo wanaagsan marka labaad ummadda gaar ahaan ku nool waddankan Jarmalka waxaan aad ugu hambaleynayaa sida fiican oo ay nagala soo qayb galeen xafladda alxamdulillah xafladii si fiican bay noogu dhamaatay si qurux badan ayay noogu soo gabagabowday inkastoo dib iyo rafaad aan soo marnay haddana alxamdulillah ma taagnay haddii mar ay si wanaagsan oo qurux badan noogu soo dhamaatay ay dadkii marti sharaftaha iyo dadkii kale ka soo qayb galay xafladaba ay si wanaagsan u ciideen annaga sharafteedu waxay tahay kaliya intaan maanta magacayn magaal Jarmalka ay tahay markii ugu horeysay meel kaliya lagu wada qabto in qoladayadan qabanqaabinaysa xafladda maamulaysa xafladda in ay ku guuleystaan si fiican oo qurux badanna hawlahooda ay ku soo dhamaadaan waxaan rajaynayaa insha Allah sanadka ku xiga inay sidaas si ka sii qurux badan ay xafladdu noo dhacdo sanadka kale haddii Allah idhaa sababta waddan noo furantay magaalada München inta Soomaali joogtay waxaan u maleynayaa sanadan qiyaasi karin haddana waa maalintii ugu horeysay ee inagu suurowdo sanad inaan ku qabanno xafladda ay dhimay waana maalin xasuus leh sharafteeda iyo karaamadeeda leedahay marka maalintaas xamse waxaad ka tilmaami kartaa caqabadihiin ka hor yimid intii aad wadeen abaabulka xafladda والله أنتي أنا ودي عقبتها برنامج كورتو عقبتها هو إن أنا جالس أمري عاوة سببتها كذي كلا سوق كلا حيتان يجليتان ضد كبانا مولي أنا وين كسر الحفلة دي هرب وشرنا نم كجبدون دوني أنا سلام وبدرو أنتي هرب بنا كانوا درنتي شوقي ما ملك حفلة ده يسدي ودعوا الصقور بدني الله نقبل قابية يسقور بدني أنا كم ترى الحمد لله لا ينو ولا قبتي وحدي بنكارنا غيرات المجد ذكرنا وحلا يكسر بالآد بدل ما يسند إنسان الله احترامتنا عاديات بمصلحة حمد شو شركة Somaliland Live Media صدرت حفلتنا عاو جودة بلدقة نسكو إلى بتنقلنا جمهورية Somaliland والله إيدو أد بعد محسنته هاي أرتبط كوجور يسوي حنال كان همبليو يبقادين يفرحات يثنين هم قدرية لما شعبي قال ناس Somaliland ملك استوي شوقان جارهان وحنال كسلامة يا أوكرة حكومة Somaliland من هذا جمهورية Somaliland أحمد محمد سيلايو يقوله يسوي سيرة كلها برلمانك كلها جورت ده يدمان xubnaha dawladda oo dhan waxa leeyahay sanad wanaagsan iyo sanad guura wanaagsan inta ka bacdi xafladani marka aan dib u eego iyadoo waqti badan aan ku sugnaa Jarmalka tan oo kale ma arag maanta ay sababtu tahay
intaas oo fanaan oo goboladii waa bari ayaa ka soo qayb gashay wacdari halkan ka dhacay waad arkaysay iidow waxay kullay igu tahay xafladani mid aad iyo aad u qiimo badan oo si aad iyo aad loo soo abaabulay oo u heersanaysa waxaan weliba aad ugu mahad celinayaa iyagana kale jaaliyadda reer muushin sida wanaagsan ay u abaabuleen ee ay xafladda u soo qabanqaabiyeen gaar ahaan guddidii reer muushin ee u horkacayay oday xasan iyo shamis iyo haddii badankeeda leeyahay xubnihii kale la shaqaynaya marka waxaan mar labaad ku celinayaa waa habeen aad iyo aad u qiimo badan waa habeen farxad inoo ah waxa kale oo aan ilaaway oo iyadana aan doonaya haddii ilaahay ka dhigo inaan aynu u ducayno oo aynu xusno nimankii mujaahidiinta ahaa ee u soo halgamay ee xorriyadda maanta aynu haddii badankeeda aynu hayno ee aynu haddii badan ku taamayno aynu ku naaloonayno raggii haddii badanka horsoodka ahaa intii dhimatay waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto inta noolla waxaan leeyahay haddii ilaahay ka dhigo ilaahay sharaf iyo qiimo badan aynu u gaarsiiyo sanadkaas sanadkiisa aad iyo aad baad mahadsantahay iyo sadarka xafladani caawa ku dabaaldegayna jumhuuriyadda gobolada jumhuuriyadda Somaliland magacaygu cabdilaahi anagu maanta ugu dabaaldegayna magaalada waddanka Germany si fiican bay noogu dhacday waxaan aday wax kasta waxaan maranayaa wax kasta wuxuu socdaa sidii loogu talagalay waxaan salaamayaa waxaan salaamayaa reer Somaliland gaar ahaan dhammaan dadka reer Togdheer waxaan salaamayaa inta soo taariikhtii sax ka jirin haddii aan ku dheerin marka hore ku soo dhawaad shirkadda caalamiga ee Somaliland Live Media adigoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Ridwaan Axmed Cali waxaan xagga hambalyo ku diray dhammaan statementka media dalka Somaliland ay joogaan dalka iyo dibadda waxaa leeyahay hambalyo sanadkan 2020 sanadkan waxaa leeyahay sanadkan sanadkiisa bashbash waa gaara ilaahayna waxaan ka baryaynaa ixtiraaf ilaahayna ixtiraaf iyo inuu beesha caalamku weyn ixtiraafaan dhammaan waxaan leeyahay Somaliland gacmaha is qabsadaan wadaniga dhabta allow dhow xafladda caawa say kula muuqataan muusha ku dabaaldegayna gobolada gurida Somaliland maanta waa maalintii aniga farxadda badnay maanta waa markii ugu horeysay aan ka qayb galay statementka May ama qurbaha jooga waxaan leeyahay aniga farxaddeeda maaha maanta mid aan la koobi karayo waa mid had iyo jeer ah mid ku salaysan qadiyadda Somaliland iyo ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay anolaad Somaliland adigoo magacaaga ku bilaabay ku soo dhawaad shirkadda caalamiga ee Somaliland Live.com aad baad u salaamtay adiga muwaadin reer Somaliland hadda daya qabaqaabiyaasha xafladda iyo dhammaan shacabka reer Somaliland meel kasta waliyo sida dagaal hal farqayna iskuunaada jidkii laga shaqeeyay aad iyo aad Somaliland waxa weeyaan caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaflad aad iyo aad u weyn baad oo waliba waan kala soo qayb galay wasiirka caafimaadka waxa weeyaan waa markii ugu horeysay waddankan baayay musharax aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa xafladeeda ilaahay waxaan rajaynayaa aad iyo aad barwaaqayis cismaan waxaan salaamayaa ummadda nabi maxamed oo dhan ummadda muslimka oo dhan allah mustacaan waxaan salaamayaa reer Somaliland meel walba ay joogaan dadkayga waan salaamayaa qarankayga waan salaamayaa sanadkan sanadkiisa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan caawa ku dabaaldegayna gobolada gurida Somaliland sidaad u aragtaa ka soo wareegtay maalintii Somaliland laga dhawaaqay magaalada Burco xafladdan ugu dabaaldegayna gobolada gurida Somaliland caawa sidaad u aragtaa waxaan u arkaa wax fiican aan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dalka Jarmalka magacaygu hoodan xuri waxaan ku noolahay gobolka Waya magaalada Muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa hooyadii aabbaha iyo carruurteeda waxaan leeyahay sanad quruxan iyo ummadda reer Soomaaliya dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliya meel kasta ku noolyihiin caawan waxaan u dabaaldegaynaa xafladda 18 May sanad 2020 adigana waan ku salaamayaa صدرك
حفلتنا عاوة مقابلات الجدود كنت بلتقي السومالان أدونا سنتاي أدبلو فرحسية دلكي مي كليان مشتاق سومالنا نسون بلتقينا أديات بنو فرحسن هاي لما وحنا هاي ما سومالنا نبتقلي ذا إلى شدان ودن كذا إلى شدان دتنا عايزوا كعمايس قبصان دتك طيرتها دتك بهنا نروش غيره ودون كين عاوي دتك هذا وحلا قبته قعنا ودتير بحكويان لما وحنا دتك بربرين كيس كده يوم كي بعد ما فينا قف كستماوي ودن كيس إلى شدان أدون كان شغله قفنا مدورين ودن كيس سبيبه قف كستماوي ودن كيس إلى شدان وحنا شغل كمينيا ودن كي ملنا ولا سنة لما تروح العمايس قبصنا لما المدرس وما لنا حنا ودن كي نوانا عشان كيف لنا عاديات الماصر